gobolka Eastern Cape magaalada Port Elizabeth waxaa laga soo tabinayaa dhacdooyin aad u xanuun badan. wiil dhalinyaro Soomaali ah oo lagu magacaabo Xuseen Sheekhay ayaa lagu dilay dukaan uu ka shaqeynayay maalinkii shalay. wiil kale oo dhalinyaro Soomaali ah oo kamid ah dhalinyarta ka shaqeysata Uberka ayaa lagu afduubtay, walow markii dambena la soo helay asagoo xaaladiisa caafimaad ee aad u liidato. dhacdooyin kale oo aad u xanuun badanna 24 saac waxay ka dhaceen gobolkaasi. xaaladdu way cakiran tahay. gudoomiyaha gobolka Eastern Cape mudane Faisal Ismaaciil Cali ayaa inooga warbixiyay. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. walaalkeen Xuseen Sheekhay Cabdiweli ilaahu naxariisto waxaan taaganahay hadda dukaankii lagu dilay yarka walaalkeen halka lagu dilay waa Sinyoka waxay 12 kilomitir u jirtaa Coastin magaalada PE ee Soomaalida ay ku dhaqan tahay. waxaan abaarihii adiga 1 o'clock camal aan call helnay in yar walaalkeen dukaankiisa soo joogo oo iska ganacsanayo dukaankii oo kale xir xabad daaqadii loogu soo dhiibay kadibna wadnaha ay ugu dhacday sidana uu ku nafbaxay. tuugadii falkaas geysatay ama dadkii falkaas geystay dambiilayaalkii meeshii way iskaga baxsadeen. askartii way joogtaa. walaalkeen meydkiisa ama boodigiisana hadda ayaa la qaaday. sida la socotaan gobolkan maalmihii hadda ugu dambeeyay waxyaabo fara badan ayaa ka dhacayay. saakii ugu dambayso yar walaalkeen oo wada iska saaran ayaa la xabadeeyay ilaa 5 xabadood camal. asiga alxamdulillah waxba maysan gaarin. sidoo kale inta wiil kale inta oo waxa jiray asigana saasoo kale inta gaari laga qaatay gaarigii kadib tuugadii ay shil ku galeen. alxamdulillah asigana sidoo kale inta waxyaabo jujug yaris ay gaarsiiyeen mooyee wax marka ayada gaari malahan gaarigiina waa la helay asigoo shil galay. xalay sidoo kale inta waxa ka dhacday wiil yar oo Yusuf Cali la dhahayo oo joogay magaalada dhalinyartii magaalada ka mid tahay oo iskaga shaqeysanayo Uber in trip oo soo dhacay la soo dalbaday kadibna gaarigii 3 nin ay raaceen. 3 nin kadib dhalinyartii ninkii la xirxiray gadaal boodkii la geliyay. xalay oo dhan sidaan u raadinayni saaki ayaa meel cidle ah oo banaan ah asiga oo xirxiran waxaa soo helay askartii iyo dawladii laamiha amaanka. kadibna waa nala soo wacay waan tagnay walaalkeen hadda wuxuu ku jiraa isbitaalka. xaaladiisana aad bay u liidataa. waxaan rajaynayaa inuu caafimaad doono insha Allah. xogaa waxa ku dhagan naqaskii. sidoo kale maalmaha hadda ugu dambeeyay gobolkan waxa ku soo batay baadii dawladii ayada naftigeeda askar fara badan ayay keentay laakiin wali wax marka ayada oo isbedel maysan dhicin. Soomaalida ku dhaqan gobolkan iyo guud ahaan South Africa waxa hadda aad u badan oo meel kasta ku soo badanaya lacagta baada ee dadka tuugada weydiisanayaan. sidoo kale waxa la xiray kaalmihii shidaalaha isbitaaladii meelihii iskuuladii oo ay ka caawinayaan dadkii in dawladii ay wax ka qaban laadahay arrimaha ammaanka ee soo food saaray. marka waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay raaha in muwaadiniinta Soomaaliyeed hantidooda maalkooda iyo naftooda iyo intoodaba Ilaahay uu badbaadiyo. kama maamulahaan anaga Somali Community Service habeenii maalin waxaan taaganahay sidii dadka walaalaheen aan ugu adeegi lahayn qof kasta oo marka ayada ahlul aqdiga wal hadiga ee odayalka iyo dhamaan inay soo baxaan oo marka ayada ummadii masiirkeedii iyo future-keedii laga shaqeeyo. meeshan ugu yaraan 30 sano dadka way degan yihiin. ciyaal baa ku dhashtay wax baa ku dhashtay in dadkii isku soo baxaan isqa qabsiga la iska daayo midnimada laga shaqeeyo si guud gacmaha la isqabsado ayaa arrimahan looga hortagi karaa. ilaahay raajicuun. meelon ku taasiyeen hilkii qaraabadii yarkii geekala ka dilay dukaankan oo hadda roogna yanku macnaha meelana Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr iimaan Ilaahay ku sii onina sas ko gadalis Ilaahayna manfasnay. markan ka horreeyay magacay meewa Ibrahim Saagiido lan ka soo Ibrahim Oro Soomaalida ma sheegay in macna iska taladan sababtoo ah iska taladan markii aan lahaa ilaa halay dhacdooyinka ilaa 4 waay. marka 4 dhacdooda dhidi 4taas dhacdood may ku mid ah afduubkii yarkii Cali Yusuf Linjeysidi oo taksiilaga ahay oo barka ka jaray. alxamdulillah wal heli haddana ku dambe raabtan may dhiday inni macnaha la haddana maarnay baawirshii la qaaday. taasna wal heli alxamdulillah Ilaahay mahdiisu. yar kalena maarnay intii u siin la afduubiya maarnay la garaacay marka u siin isbitaalka ka jar hadda. saas darteed may macnaha meelan baaqan ku diray Somali Community Service Soomaalida odayaasha oday dhaqameedyada lan walba oo macnaha ka shaqo leh Soomaalida macnaha qadaw in future shay maarnay lagu talaba
may erlahay inay wada tashi la sameeyo la talada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay u naxariisto walaalkeen Xuseen oo maanta lagu dhaawacay Sinyoka maanta lagu dilay Sinyoka dibkan maalmahan aad buu soo laabtay xalay waxa la afduubtay yar uba ah oo Yusuf xalay idilaan raadinaynay alxamdulillah maanta asagoo dhaawaca soo helnay oo gaarigiisii wixii la qaatay alxamdulillah kale hadda isbitaalka loo qaaday anina kula hadlay maanta saaka abaare 5 saac ay tahay anigoo baaki wato dukaamo adeeg geeyay soo laabtay waxa lagu qabtay wadada waxa ay u qabteen gaari 4 nin ee saaran tahay oo 4 qori u qabteen waxay qaateen gaariga baaki iyo mobilkan watay alxamdulillah baakigi kale taraakana ku jiro dib loo helay aniga kale wax dib ima soo gaarin laakiin maalmahan dhibaatooyinka aad bay u farbad yihiin saakada waxa soo gaareysay wiil maadaweel ka soo socday in wadada loo galay 9 xabadood ku dhufteen alxamdulillah wax ma gaarin laakiin gaariga 9 xabadood ay ku dhaceen marka dhibaatooyinka aad bay u farbateen waxaan dhihi lahaa Soomaalida ha tashato kale ducadina hala badiyo jadwalkan hadda lagu socon waxa laga bedelo wadanku kacsan yahay aad buu u kacsan yahay tuugina aad bay u kacsan tahay kale booliiskan waa taa ujeedaan oo kale hool ma hayaan marka waxaan dhihi lahaa anaga aan isku tashanno aan isku imaano Rashid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle